midka waxaan soo qaadanay cudurradan iyo masiibooyinkan la sheegayo quraankan hore uu sii sheegay quraankan ilaahay baa soo deji waa waxyu min Allah wax la been abuuray iyo wax la sameeyay ma ah inay taas tahayna maalin walba xaqiiqada uu sheegay ayaan arkaynaa gaalada dhibaatooyinkan ku dhacaya intaas soo maray soo noqnoqdaan mar waxay ku imaadaan ala shakl riyaah dabayl asagoo ah oo maraykanka marna waxaad ka maqlaysaan duufaan ayaa ku soo foolay magaalooyinkaas oo saacadii halka goynaysa intaas oo mayl dadka waa inay guryaha ka baxaan caasifadaas soo socota mar waxa laga dhigayaa baraf iyo qabow iyo waxba soo daaya mar waxa laga dhigayaa corona iyo virus aan la arkaynin ayaa meesha loo gelinaya quraanku muxuu yiri wala yazaalu alladheena kafaru tusiibuhum bima sana'u qari'atun kazuli mayso kuwa gaaloobay tusiibuhum inay ku dhacayso qari'atun qari'a tii garaacaysa maxay tahay meel kastay garaacay هذا فيروس كاس يكي عندها ينقبني ولا يابيها عالم كي أردن وريري قري والبو قراعة ومعناه وده والبو قراعة قارعة مدي قراعة سواي حقها لقى الشيء حقها لقى الشيء يا جي حقه أو سيو كل عليه ما واحد كسر عذاب جرا وحيساس كل عليه قارعة وبما صنع وحي سمايين هذا شنو كسر بالوضي شنو ما حي سمايين هو تعيّق السبب وهو حي سمايين وحيابها لعنه قرآن كان سوق تماما وحيته بين آدم كوحي عافمات كي سقبها أو حن وعافمات كوحي لينايا إلهي وإنك حرمي وحي عافمات كأفي عنا وإلهي وإنه حلالي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحا حن حنكا ولك حاران تنمي وحا نفت قبها وحاران أيها الشينا وحي عنايان وحبا موكال فيرين آيان حيوانات كي إبكالها صمت أو كجرتي مسكا يوحي لمد أي سيدا حوالها إنه أنو قالنو أي عنايان هذا كورونا وحالي حقوق كيماضي وحين كورونا وحو كيماضي وواحد جري حوله كوي كان جري وهرقب حولها كدعا هرقب كدتك كدعانا وهرقب دتك كدعا مدول بهرقب كيس أيوه هنجري هذا اللي بعتمد على وحيتها هرقب كي حولها أما حيواناتك يا وحوسو قدبي بني آدمك مركز هرقب كي حولها أو الغدر هرقب كي دتك وحول من نقضي كورونا هل كدر لما نقل جري سوما لما هرقب على اسكدر ماشان يا اسكدر او ددك او كينay شينا ددك او كينay maxay masasku cunayaan ayaga iyo kibiliga maxay cunayeen kibiligi iyo masaski yaani hargabkii ku jiray ayaguna yay gudaha dadka soo galiyeen gudaha dadka meesha soo galeen hargabkii dadku dhacayna uu joogo labadii oo iskaashtay ayaa cudurkan xun ayaa ka soo baxay هذا يقينا إليه محان هو كنتن ويحرم عليهم الخبائث صوحوا الموسى ناي محان بما صنعوا أيها سمي مركا قارنا وكل عايا قارنا وحالي وسو دوانايا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ذلك مركا لبان بيكال نغدين كوا وكل عايا ولا كرمتيلي إيا كوا أو تحل قريبا من دارهم قروا وميلدوا يتاقيا قروا بوحيلا يونا سو غاري غورمودا سو غاري دونا markaas waxa lagu jira xaalad cabsi ah markaas hal qof laga sheegay wadankaas hal karantiiro qof kale xaga laga sheegay tahullu qariban min daari sidaas ay ku jirayaan hatta yaati amrullah ilaahu wa'dullah ila aakhira la gaaro gaalo gorto ay joogi ha joogeen ayaguna maxay ka qaadayaan gaalnimada waxoogaa markay joogaan maalmo isdhigtaan ay dhahaan arintu way noo toosan tahay wadannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah أي ملايان دربوا إنه أذجيه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أسكر بدانا على سمايستي سارد ملتري بدانا على سمايستي نوكليير على سمايستي وحاله خلاص دفاعه سجيه هي في شد عيان ساوها إن عدي سان نصف فيرسا في شد من هالمر طابنا بدأ في ملك السجارة أو نوكليير حمبارت أيام كسي ديننا واحد نصر وانكر مره فتبكي وحاله خلاص نبض أيام بعدين هلا سيحضر ساس مياه wax ishu baa ila arkaynin oo raadaarku ula qabanaynin oo diyaarada ayna soo ridaynin oo virus la yiraahdo umba meel hoos fak ka soo yiri gantaal kurida waa kaasi marka nuclear inta soo qaadataan corona ku dhufta marka dad ku dhufan kartaan wax corona oo nuclear lagu dhufan kara ma ah marka koonkan ilaahay baa iskale si ka soo awood u sheegtaan wax ay yihiin marka yaan lagu sidin waxa la rabaa marka islaamkan wuxuu amrayaa asbaabtan in la yimaado oo wixii dhibaato la iska ilaaliyo haddana aan cabsi daraadeed aan loo halaagsanin hadda waxyaabaha oo corona keenay waxa ugu daranba
meelaha uu ku dhacay cabsida dadkii oo dhan waxaa lagu abuuray walwal markaasaa ha isu dhowaanina waxaan soo xusay berigii nabi muuse oo kitaabkii towreed ahaa ilaahay ka soo qaadayay oo munaajaadkii u aaday oo reer banu israa'iil uu ku sii dhaafay nebi haaruun yaa intuu maqnaa yaa mid ka mid a reer banu israa'iilkii meesha joogay ee nebi haaruun la joogay yaa dahab ay wateen intuu aruuriyey oo isku dhalaaliyey ayuu dibi ka sameeyey markuu dibigii ka sameeyey oo intuu afuufay cod uu ka soo baxay dibigii uu dahabka ka sameeyey yaa wuxuu ku yidhi dadkii la joogay nabi muuse ma aragna uu inaga maqan yahay ilaahay baan yani la soo hadlayaa buun inaga tegey ilaahay uu raadinayay innagaa ka hor helnaye haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya wuxuu yidhi ilaahiinni iyo muuse ilaahiisiba waa dibigane muuse ilaahiisuu iloobay wuu la'yahay meeluu ka jiree anaa meel gaaban ka soo helaye dibigaan caabuda markaas nabi haruun wuxuu ku yidhi iska dhaafa dibigaan ha caabudine markaas waxay dhaheen may waan caabudaynaa lan narjaca xataa yarjica ila masala iska dhaafa markuu yidhi